kulanti waxaan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan oo Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ay hayna waxaa kamid ah Man United ayaa diyaar u ah inay fasaxdo 3 ciyaartooy. Korea ayaa dalabyo ka helay Everton iyo Tottenham. Cristiano Ronaldo ayaa xiriir mustaqbal la sameeyay Juventus. Liverpool ayaa qorsheynaysa wadahadalo ku saabsan Shaqiri. intaasi waxay qodobadii warkaatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Man United ayaa diyaar u ah inay fasaxdo 3 ciyaartooy. kooxda Manchester United ayaa waayahanba waxay raadinayaan dakhli ay kula soo wareegaan saxiix cusub xagaagan. ciyaartooyda ay kooxda Manchester United suuqa u raadin doonto waxay kamid ah Anthony Martial, Daniel James iyo Phil Jones si ay u macsalaameeyaan garoonka Old Trafford xagaagan. Daniel James ayaa lala xiriirinayaa kooxaha kale ah Brighton, Leeds United iyo Burnley, halka Martial iyo Jones ay xilligan kooxda ka dhaawacan yihiin. laakiin Manchester United ayaa doonaysa in xidigahani ay ka helaan dhaqaale u sahli kara inay sameeyaan saxiix muhiim ah xilli ciyaareedkan. Korea ayaa dalabyo ka helay Everton iyo Tottenham. warbixintaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. Everton ayaa xoojinaysa inay la soo wareegto laacibka kooxda Lazio Joaquin Korea. Everton ayaa mid kamid ah kooxaha ka dhisan Premier League oo aad u raadinaysa saxiixa Korea xilli ciyaareedkan. kooxda Chelsea ayaa dalab adag ka gudbinaysa saxiixa laacibka kooxda Lazio si lamid ah kooxda Tottenham xilligan. Everton iyo Tottenham ayaa laga doonayaa in ay bixiyaan qiimo dhan 17 milyan oo gini si ay ula soo wareegaan Joaquin Korea. sidoo kale kooxaha Arsenal, Leicester City iyo Wolves ayaa dhamaantood raadinaya dalabka Cristiano Ronaldo ayaa xiriir mustaqbal la sameeyay Juventus. xidigan Cristiano Ronaldo ayaa qarka u saaran inuu wadahadal la furto maamulka Juventus oo ku aadan mustaqbalkiisa kooxeed kadib markii uu dib ugu soo laabtay xerada tababarka ee xagaagan. 36 jirkan ayaa ku maqnaa fasax dheer si uu u kabsado dib dhaawacii ka soo gaaray xulkiisii Portugal tartankii Euro 2020. mustaqbalka Cristiano Ronaldo ayaa noqonaya mid ay hadalhayntu aad ugu sii baahayso kooxaha ka dhisan horyaalada Yurub xilli ciyaareedkan. laacibka reer Portugal ayaa la xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo qaar kamid ah kooxaha ugu caansan kubadda cagta ee Yurub xilligan, waxaana dhawaanahanba aad loola xiriirinayaa kooxaha kale ah Manchester United iyo Paris Saint-Germain. Liverpool ayaa qorsheynaysa wadahadalo ku saabsan Shaqiri. kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran inay wadahadal la yeelato xidigeeda Shaqiri kaasoo ka fikiraya mustaqbalkiisa. Shaqiri oo dhawaan soo gutay waajibkii ka saarnaa xulkiisa Switzerland tartankii Euro 2020 ay dhawaan ku guuleysteen xulka Talyaaniga, balse waxa ay doonayaan inuu u helo waqti joogto ah kooxdiisa xilli ciyaareedka cusub. Liverpool ayaa diyaar u ah inay wadahadal la yeelan doonaan Shaqiri si loo go'aamiyo mustaqbalkiisa kooxeed. kooxda Liverpool ayaa diyaar u ah inay hesho qiimo dhan 15 milyan oo euro dalabka xidigan. kooxaha kale ah Napoli iyo Lazio ayaa labaduba si xoogan loola xiriirinaya xidigii hore ee Bayern Munich Shaqiri. Winner oo sii joogaya kooxdiisa Chelsea xagaagan. qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. Timo Werner ayaa rajeynaya inuu helo wado uu kaga tago kooxdiisa Chelsea xilli ciyaareedkan. laacibkan ayaa la cadeeyay inuusan xiise ka helin kooxda Bayern Munich. weeraryahanka heerka caalami dalka Jarmalka Timo Werner ayaa arkay inuu dib ugu laaban karo horyaalka Jarmalka. Timo Werner ayaa aad ugu dhibaatoonaya inuu la qabsado kooxda Chelsea, laakiin waxa uu xilligan ku dhawaaqay inuu ka tagi doono garoonka Stamford Bridge ee kooxdiisa. Everton ayaa diyaar u ah inay iska iibiyaan Richarlison. maamulka Everton ayaa diyaar u ah inay lumiyaan laacibka reer Brazil ee Richarlison xilli ciyaareedkan. kooxda Chelsea ayaa qiimo aad u sareeya ku dalbatay Richarlison, waxa ay arrinkan uga mahadceliyeen macallinkii hore Everton Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ayaa dhawaan ka tagay garoonka Goodison Park wuxuuna ku biiray kooxda Real Madrid bishii hore, laakiin Carlo Ancelotti ayaa xiiseynaya inuu Richarlison uu ka kaxeeyo kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan, balse kooxda Everton ayaa xidigan dul dhigtay adduun dhan 77 milyan si ay uga hor istaagaan inuu u dhaqaaqo horyaalka La Liga xagaagan. Richarlison ayaa hadda ku sugan dalka Japan ciyaaraha Olombikada adduunka oo dhawaan ka daafurmay magaalada Tokyo. inta aan kusoo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo aniga Aamin Ismaan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.